ma jeceshahay inaad ka mid noqoto dadka bisha Shacbaan loo dambi dhaafayo? nicamtu Ilaahay na siiyay waxaa ka mid inuu na siiyay maalmo ama waqtiyo ka fadli badan waqtiyo kale. waxaa ka mid bisha Shacbaan. alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. walaal joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waa xalaqadii saddexaad oo ahayd bisha Shacbaan iyo axkaamteeda. walaal bisha Shacbaan fadaa'isheeda waa ka soo sheekaynay. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam inuu soomi jirina waa ka soo sheekaynay. maanta waxaan ka sheekaynaynaa bisha Shacbaan. nebiga wuxuu noo sheegay in loo dambi dhaafayo dadka qaarkood. haddaba haddaa jeceshiid lagu dambi dhaafo labadan arrin samee insha Allah. waxa ugu horeeyo iska ilaalinaysid ashirk. shirk waxaa waaye qofka inuu ilaahay wax kale u shariik yeelo. shirkiga weyn oo aan naqaano gaalada ah ama shirki cibaada. ilaahay subxaanahu wa tacaala inaa cibaadadiis wax kale oo la shariik yeeshid, labadaas way soo gelaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenka Shacbaan 15 uu yahay addoomankiisuu fiirana kulli wuu u dambi dhaafa waxaan ka ahayn qofka mushriga ah, qofka ilaahay wax la shariik yeelo. iska ilaali caqiidadaadana sax. tan labaad oo iska ilaalinaysa waxaa waaye inaa walaalka qalbigaaga cuqda ay oogu jirto. iska ilaali taasne waxay ka mid tahay waxyaalaha aan lisugu dambi dhaafinin. mushaaxin waxaa kaloo iska ilaalisaa qaraabadaada inaa gooysidna iska ilaali. qofkii qaraabadiisa gooyo ama walaalkiisa qalbiga cuqda oo ugu jirto, asigana looma dambi dhaafayo. haddaba haddaa rabtid in lagu dambi dhaafo oo lagu cafiyo, adiga cafi suu ilaahay kuu cafiyo. iska ilaali qalbigaaga inay cuqdo ku jirto asxaabtaada ama qaraabadaada. dhageysana xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna allaha la yattali'u laylatan nisfi min shacbaan fayaghfiru. ilaahi subxaanahu wa tacaala habeenka 15 shacbaan ay tahay addoomankiisuu fiirina, fayaghfiru wuu u dambi dhaafaa kulli addoomanka dhan ilaa waxaan ka ahayn mushrik, qofka mushrika iyo mushaaxinka, qofka cuqdoolaha qalbigiisa xiqdiga ku jiro ama qaraabadiisa gooyey. xadiidkan ibn xibbaana soo saaray waana saxiix. ugu dambayntii walaalay, naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmaa inaan labadan arrin iska ilaalino. waa dambi dhaaf ciyaar ciyaar ma ahan. waxaa soo samaysay dhanaa lagu dambi dhaafaa. waa subxaana allah. inaa walaalkaa cafisid culeyskay kugu haysa maxay tahay? ilaahay dartiisu cafis in adiga lagu cafiyo aa janno ku gashid. inaa janno ku gashid ku dadaal labadan arrin. khayr allah ku siiyo, walaalaha kalena u sii gudbi. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaa inuu naga mid dhigo dadka bisha Shacbaan loo dambi dhaafayo. aamiin. jazaakum allah khayran. baarak allah fiikum. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.